السلام عليكم. iska ilaali carruurtaada noocan inaa u koriso waayo hadaa noocan u koriso waxaa kaaga dhici karo toddobadan shay aan kuu sheego oo wanaagsanaan. Number 1 hadaa carruurtaada noocan u koriso oo inaad waxbarashadooda ka warhaynin, in maxaa la dhihi saaxiibadooda ka warhaynin, in social media hooda telefoonada ku jiraan meelaha fiirsadaan maxay qoraan ka warhaynin, in زائد أولا تلسان يال إن أبلا تلينبا يعني عنقاد أبلا الشكل سنبا محا كدعي كرا عنقاد هذا حساسكو كروسو. نمبر 2 وحا كدعي كرا إن أيبا قادا نمبا مسؤوليات يعني وحا أركز قف وين أو مسؤوليتنا قادا كرن وح مسؤول أيبا قادا كرن با محا كدعي محا كلا كدعي كرا إن أي اسكو أركن مهم إنيين dad badan waaweyn arkaysaa inay muhiim ay yihiin ayba garanaynin qof oo muhiim oo loo baahan yahay oo Soomaali ah masha Allah Soomaali ahaan laakiin luqadda ku hadla waa Soomaali sabah marka iyo inay noqdaan kuwa low self esteem ay noqdaan oo kalsoonidooda ay yaraataa in ku adkaata inay sharciga raacaan sida sharciga oo guryaha ka soo qaad ama sharciga dawladda ba ha noqdo gang iska noqdaan ama speed gareeyaan ama sharciga ay jibiyaan ama adi hadalkaada waxa diiday u yeesho diid ka yeelayninba ama ay si jeclaanayaan adahad sandaf waa markaas ay si jeclaanayaaba ama ma sameeynayo waxa dhahay ama diid ama iska rafad la kootaalay ma ka yeelaan hadalkaada ama maxaa kala ku dhici karo aqoontooda maalmo dugsiga ahaata ama iskuul ha ahaata inay hoos jiraan oo laga soo doodo cunugaada wax baranayo cunugtaasaan waa ama kan waa waxbarashadooda very low ka noqdaan. maxaa kala kugu dhici kara dad noocaas u korisay in go'aamo muhiim ah qaadi karin oo saaxiibadooda dhanka saaxiibo fiican haduu Ilaahay ku aadiyo qof iska caadi iska noqdaan hadii saaxiibo xun ku aadaan saaxiibo xun dad jidka ay raacaan saaxiibadooda oo kala iska ka kaxaysan kara marka insha Allah maxaa solution carruurtaada la sheekayso kana warqab meel kasta iyo social media hooda iyo hoos guud ahaan hoos ugu carruurtaada hoos ugu nata inta iska siisid kormaka qurxayna adahad no kaas kali lagama fikiro waxaa laga fikiraa carruurtaada gudahooda maxaa ku urursan maxaa dhibooyo maxay ku faraxsan yihiin maxaa la dhihi jiray ka qaldan maxay rabaan mustaqbalkooda